soo dhawaada saaxiibayaal filimkeena maanta waxa uu ka bilaabanayaa halkan gabadhan waxaa lagu magacaabaa Sandra waxa ay wadataa gaari ku shaqeeya caqliga macmalka wiilkeeda yar ayaa la socda lagu magacaabo David safar ayay yihiin si ay u soo booqato hooyadeed waxa ay saaran yihiin wadada ilaa markii dambe ay wacday ninkeedii waxa lagu magacaabaa Carol waxa uu ka shaqeeyaa airport ku yaala Los Angeles Carol way u suurtooy weydeen oo xaaskiisii ilmihiisii u soo raaca safarkan wiilkiisii iyo xaaskiisa ayuu la hadlayaa Carol isagoo ku leh waxaan idin rajaynayaa inuu safarkiina idin fiicnaado Sandra inta ay la hadlaysay ninkeedii waxa mashquuliyay wiilkeedii yaraa ilaa markii dambe ay telefoonkan soo qabatay si ay ugu mashquuliso kadibna waxa ay la hadlaysaa ninkeedii laakiin telefoon ayaa soo wacaya Carol waxa uu sheegayaa inuu shaqadii galayo isagoo maca salaameeyay xaaskiisii iyo ilmihiisii Sandra safarkeeda ayay hore u soo wadatay gaarigan ay wadato waxa ku shaqeeya caqliga macmalka ilaa markii dambe ay timaaday meeshan gas stationka kadibna gudaha ayay u soo gashay si ay cunugeedii uga bedesho xafaayada ilaa ay aragtay gabdhahan ku qosqoslaya xoogaa nasniin ayay ku qaadatay halkan ilaa markii dambe cunugeedii u soo kaxaysay supermarketkan si ay ugu iibiso waxa uu cuno isla markiiba David waxa uu soo qaatay chocolatekiisii oo aadka u jeclaa waxa ayna timi meeshii lacagta lagu bixinayay ilaa markii dambe Sandra aragtay ninkan tuuga ee gaarigeeda isku dayay inuu baarto isla markiiba telefoonka ayay la soo baxday waxayna loo garaysay gaarigii aad ayay ugu qoslaysaa waxa ku dhacay ninkan balse intii ay ku mashquulsanayd telefoonka waxa ka lumay cunugeedii way u qeylinaysaa cunugeedii ilaa markii dambe ninkan weydiisay laakiin ma arag ayuu ku leeyahay Sandra aad ayay u murugaysan tahay ilaa markii dambe soo oroday si ay cunugeeda u raadiso ilaa markii dambe banaanka u baxday kadibna ay aragtay odaygan weyn ee ilmaha wata waxay ku khalday cunugeedii laakiin isagii ma aha ilaa ay markii dambe aragtay cunugeedii oo gaarigan ku dhex jira isla markiiba waa soo orday iyadoo cunugeedii la soo baxday gaarigeedii ayay timi Sandra ilaa markii dambe dadkii halkan taagnay oo dhan ay gaarigeedii u soo dhawaadeen isla markiiba gaariga ayay ku xiraysaa systemkeedii si gaariga uu isku loo goreeyo ninkii tuugaha waxa uu la yaaban yahay gaarigan casriga dhammaantoodna waa ay la yaaban yihiin Sandra waa ay soo dhaqaaqday waxayna soo kortay wadadii si ay safarkeedii hore ugu sii wadato ilaa markii dambe saaxiibteeda ay soo wacday kadibna waa ay ka qabatay iyadoo video call kula hadlaysa sheeka ayay ku jiraan Sandra iyo saaxiibteed balse nasiib darro saaxiibteed waxa uu sheegtay hadal aysan ka filayn ilaa ay ku tiri waxaan caawa wada joognaa ninkaagii waxaana wada jiifsanay hoteelkan gaarigii ayay istaajinaysaa iyadoo aad isugu naxday kadibna telefoonka ayay ka baxday gabadhii isla markiiba waxay isku dayaysaa inay koolka ku celiso laakiin kama qabanayso Sandra iyo cunugeedina waxay yimaadeen gurigii ay u socdeen waana gurigii hooyadeed ilaa markii dambe ay isku dayday inay wacdo ninkeedii laakiin waa uu ka qaban weynayaa isla markiiba go'aan ayay qaadatay waxayna isku dayaysaa inay dib uga laabato guriga hooyadeed iyadoo kusii jeeda meesha uu ninkeedii joogo waana Los Angeles mar labaad ayay Carol ku celinaysaa telefoonka laakiin kama uu qaban Davidna waxay u dhiibtay telefoonkiisii Los Angeles waxay u jirtaa 320 mayl wadada ayay soo qaaday ilaa ay markii dambe xagaafkan u soo baxday waana meel cidlo ah habeenimo ayay ku noqotay Carolna aad ayay u naxsan tahay maadaama wadadan aysan marayn cid aan iyaga ka ahayn isla markiiba hareeraha wadada ayay fiirinaysaa ilaa ay markii dambe aragtay shirkadan korontada way dhaaftay hore ayay iga sii socotay Sandra waxayna la yaaban tahay mugdiga ay soo gashay gaarigeeda ayaa u sheegay inay meesha hadda ay marayso ay halisteedu badan tahay mana taqaana meel ay marto jidkii waa ay ka luntay ilaa ay markii dambe gaarigii dusha ka marisay baciidkan halkan ordaya aad ayay isugu naxday Sandra laakiin gaariga ayaa si automatic isku istaajiyay maadaama uu ku shaqeeyo caqliga macmalka Sandra waxay isku dayaysaa inay gaariga gadaal u saarto laakiin waa uu diidayaa waana in gaariga hoostiisa laga soo saaraa waxa ay jirtay isla markiiba telefoonka ayay wiilkeeda u dhiibtay si uu isugu mashquuliyo gaariga ayay kasoo degtay Sandra waxayna aragtay bahalka ay jirtay afka ayay qabsanaysaa iyadoo aad ula yaaban waxay isku dayaysaa inay gaariga xaggiisa hoose kasoo jiido laakiin awood uma yeelanayso ilaa ay markii dambe telefoonkii ay David u dhiibtay waxa uu ahaa telefoonka laga maamulo gaariga ilaa uu markii dambe applicationka gaariga galay kadibna waxa uu afgareeyay gaarigii oo dhan ilaa markii dambe Sandra oo banaanka taagan ay aragtay in gaarigii uu loo ku xirmay laakiin David mar kale ayuu applicationkii gaariga galaya ilaa uu markii dambe gaarigii oo dhan xaalad emergency geliyay mana jirto cid furi karta gaarigan muraayadihiisu aad ayay u adag yihiin isla markiiba waa soo ordaysaa iyadoo aragtay in gaarigii xaalad emergency la geliyay Sandra waxay isku dayaysaa inay gaarigii furto laakiin awood uma yeelanayso ilaa ay markii dambe wiilkeedii daaqada kala hadashay kuna tiri telefoonka soo qabso David waa uu fiirinayaa mana garanaya waxa ay hooyadiis u sheegayso hooyadii waxay kala hadlaysaa daaqada cunugeeda si ay applicationka telefoonka uu mar kale u galo balse inta uu hooyadii u jeegay ayuu telefoonkii ka dhacay waxaana ku xiran suunka gaariga ma awoodo inuu gaariga xaggiisa hoose telefoon ka soo saaro Sandra afka ayay qabsatay waxayna aragtay inay ku jirto xaalad aad u halis badan waxay iska ag taagan tahay gaariga mana geli karto awoodna uma lahan waana gaari ku shaqeeya caqliga macmalka qofka gudaha ku jira kaliya ayaa maamula xalka kaliya uu leeyahayna waa in telefoonka gudaha ku jira qofka haysta uu isticmaalo si uu applicationka telefoonka u galo kadibna telefoonka uga saaro Sandra waxa ay soo qaadatay dhagaxan si ay gaariga muraayadiisa u jabiso laakiin awood uma yeelanayso gaarigan muraayadiisu way adag yihiin waana sida birta oo kale xoog ayay ugu qaraacaysaa muraayadaha gaariga ilaa markii dambe David iska ooyay ka Sandra ay aad uga quusatay in gaariga muraayadiisa uu jajabo halka ay joogtana waa meel cidlo ah iyaga kaliya ayaa jooga ilaa markii dambe ay safar lugtaa soo qaaday si ay ugu noqoto shirkadii ay hadda soo dhaaftay albaabkii shirkadda ayay timi waxayna arkaysaa in albaabku xiran yahay silsiladna ay ku xiran tahay ilaa markii dambe gudaha u soo dhacday albaabkii
albaabkii laga galay shirkadda ayay iska furtay Sandra ilaa ay markii dambe telefoonkan aragtay laakiin waxay arkaysaa inuusan shaqaynayn kadibna waxa ay baaraysaa si ay wax caawimaad uga hesho ilaa markii dambe tooshkan u heshay kadibna waxay gashanaysaa xagga dambe iyo sidoo kale baanadan aadka u weyn waxayna ku fikiraysaa inay gaariga ku jabiso tooshkii ayay soo daaratay waxayna doonaysaa inay dib gaariga ugu soo laabato ilaa ay markii dambe aragtay bahalkan hortaagan waa ay soo cararaysaa Sandra iyadoo aad u qaylinaysaa kadibna waxay u imaanaysaa gaarigii wiilkeedii waa uu fiirinaya ilaa ay xagga sare gaariga kortay si ay uga badbaado bahalkan soo baxsanaya tooshkii ay afartan dhinac ku aadinaysaa ilaa ay markii dambe aragtay eygana aadka u gaajaysan isla markiiba way iska celinaysaa eygiina waa uu isaga tegay Sandra aad ayay u qaylinaysaa waxayna doonaysaa inay halkan isaga tagto gaarigii ayay ku jabinaysaa baanadii ay soo qaadatay laakiin maaha mid jabinaya ilaa ay markii dambe xagga hoose usoo degtay kadibna ay aragtay wiilkeedii David waxayna kor seexatay gaarigii subaxnimadii ayaa la gaaray Sandrana waxay ka kacday hurdadii waxay dib u fiirinaysaa xaaladda wiilkeedii uu ku sugan yahay ilaa ay markii dambe aragtay wiilkeedii oo wejigiisu isbedelay gaajo aad u daranna ay hayso waa ay walwalsan tahay ilaa ay aragtay xaraaradda gaariga oo aad u siyaaday kulayl badanna uu ka jiro gudaha gaariga isla markiiba wiilkeeda ayay daaqada kala hadlaysaa laakiin codka hooyadiis ma maqlo isla markiiba Sandra waxay isku dayaysaa inay xagga sare gaariga korto iyadoo xagga sare gaariga ka saaraysa maradii ay qabtay si ay gaariga uga difaacdo qoraxdan haysa temperature-ka gudahana uu isbedelo wiilkeedii David xagga sare ayuu hooyadii ka fiirinayaa mana garanayo waxa ay hooyadii sameynayso ilaa uu markii dambe gaajo darteed la ooyay Sandrana waxa ay gashay xaalad murugo ah maadaama wiilkeeda uu gaajo la ooyayo waana ay halkaas kaga tagtaa ilaa markii dambe ay soo dhaqaaqday waxayna doonaysaa inay safar lugta gasho si ay u hesho cid caawisa buurahan aadka u dhaadheer ayay soo maraysaa ilaa ay markii dambe aragtay meeshan biyaha ah biyihii ayay kusoo ordaysaa Sandro waxaana ugu dambeysay shalay biyo ay afka geliso biyihii ayay cabaysaa ilaa ay jirkeedii oo dhan ay ku dhaqday dib ayay safarkeedu soo galaysaa Sandra iyadoo doonaysa inay hesho cid caawisa ilaa ay markii dambe aragtay diyaaradan meeshan cidlada ah taagan way soo ordaysaa Sandra iyadoo aad u faraxsan ilaa ay markii dambe diyaaradda gudaha u soo gashay diyaaradii oo dhan ayay fiirinaysaa waana diyaarad meesha ku halowday waxay isku dayaysaa inay ka hesho waxuun badbaada waa ayna ka weyday waxa ay dibadda usoo tuurtay taayirkan kadibna waa ay gubtay si qiiqa marka uu hawada u galo ay u hesho cid caawisa dib ayay ugu soo laabanaysaa ceelkii biyaha waxayna wadataa caagad ay kasoo qaadatay diyaaradda si ay biyo uga dhaansato dib ayay ugu soo laabatay iyadoo ordaysa gaarigii waxayna fiirinaysaa cunugeedii laakiin waxay aragtay cunugeedii oo aan dhaqdhaqaaqayn ilaa ay markii dambe caagadii biyaha ay wadatay xagga sare kaga shubtay si gaariga temperature-kiisu uu qaboobo mar kale ayay kusoo laabanaysaa muraayadii waxayna fiirinaysaa cunugeedii ilaa ay markii dambe aragtay inuu cunugii wejigiisii oo dhan isbedelay Sandra waxay soo goynaysaa geedahan si ay dab ugu shido waxayna usoo dhaweynaysaa gaariga waana xal suurtagal ah inuu gaarigu ku furmo markuu arko qiiqan si caqliga macmalka uu ogaado in gaarigu uu halis ku jiro muraayadiisa dhan oo isku furo qiiqi ayay gaariga ku aadinaysaa laakiin gaarigii waa uu sii xirayaa temperature-kiisina kor ayuu u kacay ilaa markii dambe caagadii soo qaadatay kadibna waxay isku dayaysaa inay dabkii baktiiso mar kale Sandra waxa ay soo qaadatay baanadii iyadoo gaariga la dhacaysa laakiin gaarigan aad ayuu u adeeg yahay suurtagalna maaha inuu ku furmo way xanaaqsan tahay quus ayay taagan tahay Sandra waxayna ogaatay in cunugeedu uu halis ku jiro isla markiiba way soo dhaqaaqaysaa Sandra waxayna arkaysaa eygan aadka u gaajaysan waana eygii xalay ayaa kusoo ordayay isla markiiba go'aan ayay qaadatay waxayna ka gashay eygii xagga hoose ee gaariga ilaa ay markii dambe baanadii isaga celisay laakiin baanadii oo dhan ayuu afa gashtay isla markiiba eygii waa uu ka laabtay waxa uuna arkay neefkii xalay jirtay eygiina waxa uu jiitay neefkii ayuu cunaya eygii halka gaarigii uu soo taraaraxay Sandra waxay gashay xaalad kale oo murugo ah gaarigii cunugeeda uu saarnaa ayaa soo taraaraxay waxa uuna halis ugu jiraa inuu buurtan ka dhaco ilaa markii dambe uu gaarigii qabtay dhagaxan yarka ah eygiina waxa uu ku cunaya neefkii ay jirtay Sandra halkan Sandra waxa ay fiirinaysaa buurta ka hooseysa isla markiiba go'aan ayay qaadatay waxayna isku dayaysaa inay gaariga halkan ka tuurto si markii uu gaariga halkan uga dhaco ay albaabada gaariga oo dhan ay isku furaan isla markiiba gaariga ayay taakada ka saaraysaa iyadoo arkaysa inuu eygii dhamaysay hilibka baciidka ee xalay jirtay waxayna isku dayaysaa in eygan meesha ka eriso waana xaalad kale oo halis ah si haddii ay gaariga meesha uga turto uusan uga cunin cunugeedii waa ay soo riixday gaarigii ilaa ay markii dambe labada taayir oo dambe gaariga ay buurta ka tuurtay waxay fiirinaysaa cunugeedii laakiin waa ay sii daysay gaarigiina waxa uu kasoo dhacay buurta inta uu gaariga hawada ku jiray waxaa isbedelay systemkii gaariga uu ku shaqaynayay oo dhan gaarigiina waxa uu ku dhacay dhulka waa ay soo ordisay iyadoo aad u rafaadsan kadibna waxay iska soo tuuraysaa buurta si ay u ogaato in gaarigiis furay waxay fiirinaysaa cunugeedii inuu nabad qabo laakiin nasiib wanaag waxay aragtay gaarigii inuu u furmay cunugii ayay gaariga kala soo baxaysaa waa ayna ku guulaysatay inay cunugeedii badbaadiso qabowga ayay u dhigaysaa farxad ayay la ooyeysaa Sandra maadaama cunugeedii u badbaaday gaariga ayay dib ugu soo laabanaysaa Sandra gaariga ayay daaraysaa ilaa ay markii dambe aragtay inuu gaarigu shaqaynayo aad ayay u farxaysaa gaarigeedii ayay soo kaxaysatay waxayna soo kortay wadadii cunugeediina waa uu suuxay isla markiiba dhakhtarkan ayay yimaadeen waxaana lagu sameeyey xaalad baaritaan nasiib wanaag dhammaantood waa ay kasoo badbaadeen halistii cunugeediina waa uu badbaaday Sandra daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay tan iyo intaas kaga imaan doono filimka xiga waxaan idinka codsanayaa inaad muuqaalka like saartaan channelkana subscribe tiraahdid waa ku mahadsantihiin markale daawashada muuqaalkan